madaxweyne ku soo dhawow jaad u tidaahdid ereyadaadii muhiimka ahaa oo laga maarmaanka ahaa madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta dowladda Puntland oo in muddo ah isla markaana 6 bilood ah tababar uga socday xerada tababarada ciidamada daraawiishta dowladda Puntland ee Xorgoble madaxweyne ku-xigeenka ayaa bogaadiyay dowladtuska ay ciidamada la tababaray oo loogu magac daray Glare oo soo bandhigeen waxaana uu sheegay in tayeynta ciidanka iyo inay helayaan mishaarkooda si joogto ahna ay tahay waxyaabihii ay ku guuleysatay dowladda sanadkii hadda dhamaaday ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash ayaa kula dardaarmay inay ciidamada la tababaray inay noqdaan kuwa sida ay tahay u guta waajibaadka saaran ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash ayaa ka hadlay halkaas waxaana ku weelinayay tababarkan ciidanka loo soo xiray wasiirka wasaaradda amniga Cabdisamad Galan iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta Puntland waxaana madaxweyne ku-xigeenka hadalkiisii ka mid ahaa waxa farxad weyn ah maanta inaan kala soo qayb galo xafladda xiritaanka ciidankan xeradatan ku tababartay Xorgoble aad iyo aad bay farxad igu tahay waxa la wixii la sheegi lahaa waxa sheegay ama taliyaha ahaadeen ama wasiirka ahaadeen oo iga xogaalsanaa in allaale intay sheegaan man la qabaa waxa farxad weyn maanta ah in halkan laga qiray sida ay u joogeen degmada tan ama gobolkan ay ku tababaranayeen ammaan waxa iiga mudan iyo bogaadin labada qodob oo ay laga sheegay halkan kow ciidan badan oo 600 gaaraya ayaa halkan looga furay tababar intana ka soo hadhay marka ammaan noogama baahnay indhahayga ay macallina iyo waxay soo bandhigeen qodobka labaad dhaqan ahaan inay dad dhaqan yihiin magaalada ay joogaan oo magaalo dhaqana inay dad dhaqan noqdeen oo aan dhaqan iyo maxay tahay wax ceeba wanaag mooyaan laga sheegin iyana waa ammaan kale inta markaan ka gudbo waxaan ku farxay oo aad iyo aad aniga ii taabtay oo waliba saad ogsoontiin si gaar ah ii taabanaya mid budlaannimo iyo mid gaaraba tababarkii aan halkaa ku arkay ciidankaas maanta waxyaabaha ay soo bandhigeen aad iyo aad bay runtii ii taabanaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa aan maanta halka ka sheegayaa in sida wasiirka amnigu sheegay ama taliyaha ciidanka uu sheegay ama madaxda kale aan masaaka halkan u helin ay aan isku ognahay ciidankani waa ciidankii ugu horeeyay oo biometrika lagu dhaqan geliyo waxa la wuxuu waajibaad u leeyahay haddii alla yiri iyaga lagu bilaabayo waxa aynu sida wasiirka ay sheegeen waxaan rajaynaynaa wasiirka iyo wasaaradda amniga iyo inay yimaadaan waad filayseen maanta inaanu intan maxay tahay ka culusnahay laakiin waa isdaba joognaa bari ama saad dambe haddii alla yiri waa la idin iman doonaa waxa la wuxuu xagga idinkaga dambeeya oo karaana oo idinka maqan waxba la idin kala hari maayo example baad u noqonaysaan ciidamada tababartay halka kan aad ugu horeyseen sida wasiirka iyo ay sheegeen iyo taliyuhuba in fact kuwii ugu horeeyay ama ugu mudnaa ama aanu indhahayaga na tusay baa tihiin waxaanu aan faraynaa wasiirka iyo wasaaradda amniga iyo taliyaha guudba in biometrikii iyo loo bilaabo oo ay ugu horeeyaan waxaanu waa marayso wixii account-koodii iyo wixii lacagtooda say u heli lahaayeen waliba waxaan rajaynayaa inkastoo hadda aad la socotaan marxaladaha aynu marayno oo cudurro iyo ilaahay haynaga najeeye hadday dhaqaalihii iyo naftii iyo mid walba dhibaato u geystay waxaa lagu tala jiraa in kolley go-aankeeda waxaa idiin sheegi doonaa wasaaradaha ku shaqaalaya iyo taliyaasha in ciidankani wuxuu ku farxo ku bilaabi doono Xuseen Xasan Cadde telefishinka caalamiga ee Kalson TV